Yeah. Yeah. maanta waxaan review gareyn doonaa mobilkan oo ah Samsung Galaxy A71 isagoo ah mobilkii ugu dambeeyay mobilada A series-ka sida Samsung Galaxy A30, A30s, A50, A51 iyo kuwa kale ee series-ka ah. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مع عمش مراسل.com kusoo dhawaada barnaamijkeennii wiiglaha ee Maraso Technology Review. marka ugu horeysa aad iibsato mobilkan ee aad ka furto kartoonka waxa koobaad ee ku soo jeedin doona waxa uu noqon doona waa screen-kiisa. mobilkan cabirkiisa screen-ka ayaa waxa uu yahay 6.7 inch isagoo ku saamaxaya inaad si fudud ugu daawato muuqaalada. waxa soo kale iyadana ku sahlaya cabirka resolution-ka mobilkan oo ah mid aad u fiican isagoo lagu cabiro 1080 ilaa 2400 pixel. xagga dambe ee mobilkan ayaa waxa uu ka samaysan yahay plastic soo kale colorska uu ka samaysan yahay colors graniyada oo isku dhex jira. display-gan sare ama muraayada sare ee mobilka ayaa waxay ka samaysan tahay nooca loo yaqaan Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3 waxay ku sahlaysaa ama ku saamaxaysaa inay ka yareyso xoqitaanka iyo scratch ku dhaca muraayada. tusaale ahaan haddii imika aad iibsato mobile waxaad koowaad ka fikirtaa maad ka wareysa waxa uu noqon doonaa haddii aan mobilka ku qaato bila protection waxa dhacaysa in screen-ku iga xoqmo ama si yar fudud u dilaaco gaadho. haddaba Gorilla Glass 3 waxay ku sahlaysaa in dhaawac amba scratch-ka mobilka si yar fudud u gaadhaya aanay hore ugu dhicin. mobilkan Galaxy A71 waxa ku jira Android version nooca ugu dambeeyay isagoo Android 10 One UI 2. hadhow tolo marka aad gudaha u gasho waxaad arki doontaa featureska cajiibka ee uu leeyahay Android-kan ku jira mobilkan. sidoo kale mobilkan waxa ku jira chipiska nooca ugu dambeeyay isagoo ah Snapdragon 730 oo ah chipiska hadda ugu fiican ee la isticmaalo. mobilkan ayaa waxa uu ku yimaadaa 128GB oo ah waxaan la yaqaano maskaxda gudaha amba internal storage-ka iyo sidoo kale waxa uu ku yimaadaa 6GB oo RAM iyo maruu yahay 8GB oo RAM. waxaan kugu bashaareynayaa macmiil haddii aad iibsato mobilkan la yaqaano A71 waxa koobaad ee aad ka maarmi doontaa waxa uu noqon doonaa dabka iga dhacay mobilka batteriga iga xun waxyaabaha aad ka maarmi doontaa. cabirka batteriga mobilkan ayaa waxa uu yahay 4500 mAh isagoo ku sahlaya in aad isticmaali karto muddo ka badan 4 cisho. waxa soo kale uu leeyahay oo socda mobilkan charger fast charger oo isaguna ku sahlay in hore uu kugu charge gareeyo mobilka. macmiil haddii aad ka mid tahay dadka marka ay iibsanayaan mobiliska u iibsada feature-ka badan loo yaqaan kamarada waxaan ku wada bishaaradaas oo ah macmiil inuu mobilkan A71 uu ka mid yahay mobiliska ugu fiican dhinaca kamarada. mobilkan ayaa waxa uu leeyahay 4 kamarood oo xagga dambe ah. kamarada ugu horeysa ayaa cabirkeedu waa 64 megapixel. kamaradan labaad ayaa cabirkeedu waa 12 megapixel iyadoo ku qabanaysa hal yaqaan ultra wide-ka oo halka adigoo taagan aan dibna u bixin horena u bixin aad sawirkaad u baahnayd aad si fiican u qaadi karto. kamarada saddexaad ayaa waxay tahay oo loo yaqaano macro camera oo iyada ku qabanaysa sawiraanta aad rabto inaad soo dhaweyso saa u baxaantoo kale ama waxyaabahaas oo kale inaad iyana si yar fudud u sawiri karto. kamarada u dambaysa ayaduna waxay qabataa hal yaqaan depth sensor amba in si bini'aadamku fahmi karo ay sawiraantii amba naturalka ay ku soo dhaweyso sawiraanta. haddii aan u nimaadno kamaradan hore ama kamaradan la yaqaano selfie kamarada ee mobilkan A71 ayaa halka hore waxa uu ku leeyahay hal kamarad oo cabirkeeduna aad u fiican yahay. cabirka kamarada selfie ee mobilkan A71 ayaa cabirkeedu waxa uu yahay 32 megapixel. cabirkaasina waxa uu ku sahlayaa inaad ku gasho amba aad ku qaado sawir aad u qurux badan. macmiil kuwan waxay ka mid yihiin sawiraantii aan ku galay mobilkan A71 intii aan haystay. macmiil haddii aad ku qanacday mobilkan cajiibka ah ee A71 waxaad ka iibsan kartaa shirkadda Maraso.com. soo kale waxaad isticmaali kartaa adeegga loo yaqaan adeegga isbedelka adigoo keenaya mobilkaaga hore kadibna qaadanaya mobilkan A71.